xafiiska maareynta masiibooyinka iyo khataraha dowlad-deegaanka Soomaalida ayaa ka digay fatahaadaha biyaha ee ka dhashay roobkii muddooyinkii u dambeeyay ka da'ayay deegaanada dowlad-deegaanka Soomaalida oo qaarkood ay sababeen khasaare naf iyo maalba leh. agaasimaha digniinta hore iyo jawaab celinta ee xafiiska maareynta masiibooyinka iyo khataraha dowlad-deegaanka Soomaalida Mudane Cabdifataax Maxamed Cabdi agaasimaha digniinta hore iyo jawaab celinta ee xafiiska maareynta masiibooyinka iyo khataraha dowlad-deegaanka Soomaalida Mudane Cabdifataax Maxamed Cabdi ayaa bulshada deegaanka uga digay inay u dhawaan goobaha joogoodu hooseeyo iyo waliba goobaha biyo mareenada ah kuwaas oo uu sheegay inay khatartoodu ay aad u badan tahay. sidoo kalena deegaanka Soomaalida la filayo in toddobaadada soo socda uu ka di'i doono roobab culculus sida ay shaacisay wakaalada saadaasha hawada ee dalka Itoobiya. agaasimuhu waxa uu xusay inuu fatahaado sameeyay webiga Shabeelle isla markaasina khasaare aan burnayn uu gaarsiiyay xoolihii iyo beerihii ku yaalay deegaano ka tirsan gobolka Shabeelle. waxaanu intaasi ku daray in xogtii u dambeysay ay heleen ay sheegayso in laga yaabo in caawa ay biyuhu gaadhaan 11 milyan. waa sida uu hadalka u dhigay. digniintan gaarkaan u bixinaya waxay tahay webiga Shabeelle oo daadka ka yimaada deegaanadan deegaanka gobolka City iyo gobolka Faafan roobashan hadda ka da'ay karantada iyo sidoo kale buuraleyda Highlandiga Oromia. roobkaasi daadadka biyaha ka yimaada webiga Shabeelle ku darmadaan marka webiga Shabeelle saaka wuxuu marayay sidaan digniinta hore focalka digniinta hore gobolka Shabeelle xogta uu nagu soo gudbiyay saaka 9.7 ama 9.7 ayuu marayay. digniinta xilliga la bixiyo loogu talagalay waa marka ay 8 marayo marka maadaama 9.7 marayo xaalad adag ba ka dhalan karta meel ka mid ah beer caan qabalay ka mid ah hoos yimaadana uu ka baxay biyihii laakiin saameyn culus muna keensan. ugu dambeyn agaasimaha digniinta hore iyo jawaab celintu waxa uu maamulada gobolada iyo degmooyinka dalka ugu baaqay inay bulshada u sameeyaan wacyigelin badan oo ku saabsan sidii ay uga diyaar garoobi lahaayeen khataraha ka dhalan kara roobabka waaweyn ee ku soo fool leh dowlad-deegaanka Soomaalida. noocan oo kale intayna dhicin ka horna sidoo kale digniin uga bixino iyo sidoo kale hadii ay dhacdo ay suuroodo inaan jawaab celin ka bixino. jawaab celintan ka bixinayna waxay isugu jirtaa mid aanu shirar isugu yeerno degdeg ah hay'adaha ka howlgala deegaanka iyo xafiisyada bahwadaagta ee deegaanka wixii awoodnada aan markaa jawaab celin ka bixino hadii awoodnada ay ka baxsanaatana aan u gudbino dawladda federaalka iyo hay'adaha saldhigoodu yahay magaalada Addis Ababa xarun dalka. Shabcaan Maxamed Xaaji Dhagax wararka laanta afka Soomaaliga telefishinka codka bariga Afrika magaalada Hargeysa.